madaxweynaha maamulka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare iyo wafdi uu horkacayo ayaa maanta magaalada Jowhar dib ugu soo laabtay waxayna wafdiga madaxweynaha uu horkacayay ka qayb galeen soo gabagabeynta shirka maalgashiga ganacsiga maamulka Hirshabelle oo Jowhar muddo 2 maalmood ah ka soconayay madaxweynaha oo soo gabagabeeyay khudbadihii madasha la isu dhaafsaday ayaa shaaca ka qaaday xaaladda amni darro ee wadada Jowhar iyo Balcad inay sabab u tahay howlgallo ka socda deegaanada gobolka Shabeellada Hoose taasina ay tahay culeyska ugu badan ee dhanka amniga ah ee soo food saaray wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho si gaar ah Jowhar iyo Balcad annaga Hirshabelle haddaan nahay culeys amni oo aan wax badan qarsanay oo aan la tacaalnay ayaana fuula hadda wuxuu soo gaaray meel aanan qarsan karin howlgallada ka socda Shabeellada Hoose waa dad Soomaaliyeed waa dad walaalaheena in cadawga laga dulqaado raalliyaan ka nahay laakiin cadawgii Shabeellada Hoose lama line wadanka kama bixin annagoo noo soo guuray halkaan uu nala joogaa waad ka warqabtaan dhacdooyinka ugu dambeeyay oo ka dhacay Balcad waad ka warqabtaan dhacdooyinkii ka sii horeeyay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan intii arintaas saameyn ku leh laga soo bilaabo dawladda dhexe ilaa lagu keeno tuulada qofka ku nool inaan ka wada shaqeyno sidii amniga wax looga qaban lahaa ugu dambeyn madaxweyne Maxamed Cabdi Waare waxa uu baaq u diray hay'adaha qaatay qandaraaska dhismaha wadada Jowhar iyo Muqdisho oo uu sheegay inay la soo daaheen hay'adihii laga door sugayay inay bilaabaan dhismaha wadada isla markaana xilliyadii lagu balmay dib kaga dhaceen wadadii aan rajada ka qabnay in laga sameeyo Jowhar iyo Xamar wadadaas annaga waa nagu soo daahday aadaan u dhararnay shirkadaha qandaraaska ku qaba oo la siiyay oo muxuu ay u calaamadsan tahay waxaan rabnaa inay sida ugu dhaqsaha badan u bilaabaan khudbadda amni ee madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii dambe xaalado amni darro ay ka jireen wadada xiriirisa Balcad iyo Jowhar xubno maamulkiisa ka mid ahna weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay ay ku nafwaayeen Cabdi Fataax Ahmed Macluur warbaahinta SBC Jowhar